asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada janalka shalay waxaynu soo sharaxnay cashirkii shanaad kaasoo ku saabsanay saddex nal oo hal mar wada shaqaynayso. Maanta cashirka wuxuu ku saabsan yahay cashirka lixaad ayaa maanta rabnaa inaan guda galno. Wuxuu ku saabsan yahay RI sensor wax loo yaqaano. RI sensor micnaheedu waxaa waaye haddii aynu fiirino TV-ga dhalada waxuu leeyahay repeat ayuu leeyahay. Repeat-ka waxbaa laga beddelaa. So marka dhalada waxaa ku xiran IR sensor kaasoo helaya signals-ka repeat-kan. So marka qofka hal taabto si hal loogu geeyo, hadduu taabto off si loo damiyo. So loojikadaas qaabkay u shaqaynayso aan isla aragno ayadoo IoT ah. So waxaa soo gashaa tinkercad-kaada kan cashirkii hore waaye waxaa samaystaa new circuit. So simple create new circuit. Okay. Marka hore waxaa u baahannahay Arduino. Then waxaa u baahannahay preport. So meeshaan hadda haddaa fiirisid IR sensor ma helaysid. Meeshaan waxaa ka dhigataa all ka dhig. So ama search bar-kaas xitaa ku qori kartaa IR sensor. IR sensor. Kan waa IR sensor-ka. Marka wuxuu leeyahay saddex gud uu leeyahay. Qayb oo output ah oo loogu xiraayo Arduino-ha iyo GND iyo power. Meesha dabka ka helaa oo positive-ka lagu xiraayo. Marka inta waa ku rakibi kartaa maadaama uu sensor yahay. Sensorada waxay dab siiyaan board-ka ay dab siiyaan. Marka kor iyo hoos waxaa rabtaa ku rakibi kartaa maadaama haddii inta GND-ga uga rakibo maxaa la yirahdaa Arduino-ha haddii inta uu dab ka helaayo qaybtan korena waxaa dab siinaya IR sensor-ka. Meeshaan waxaa ka dhigataa basic. Waxaa u baahannahay nal u baahannahay iyo hal resistor ah. So simple resistor-ka waxaa ku aadisaa lugtan gacmaha ku aadi. So mar walba nalka lugtiisa gaaban waxaa lagu xiraa maxaa la yiraahdaa waxaa lagu xiraa Arduino-ha lagu xiraa resistor-kan u qaybiyay meeshaan. Kanna wuxuu leeyahay qaybtan GND-ga waxaa lagu xiraa qaybtan minuska ah. Qaybtan power ay ku qoran tahayna waxay la mid tahay 5 voltage-ka uu leeyahay Arduino-ha uu leeyahay ay la mid tahay. Qaybtan waxaa lagu xiraa maxaa la yiraahdaa Arduino-ha lagu xiraa. So godka rabtaa ku rakibi kartaa. So waxaa siinaynaa daba siinaynaa board-keena. GND-gana waxaa ku rakibtaa. Okay. Resistor-ka lugtan mar walba resistor-ka godka ku aadan waxaa ku xirtaa Arduino-hada ku rakib. Okay. Okay. Sidaa marka aad isku rakibtid waxaa u baahan tahay code. So simple meeshan block maahane text ka dhig. Okay. So code-ka hore usoo qoraysa waqti uuna nooga lumin. Marka koowaad waxaa declare garaysanaynaa IR sensor-keena. Saa hore usoo wada sharaxnay cashir hore jiro aan soo sharxaynay sensor markii lala tacaamulayo. Sensorka input waaye laba qaab u samayn kartaa hadda. Hadda meeshan waxaa la 7. 7 micnaheedu waxay la mid tahay LED-kaani la mid tahay. Anagoo dhihin red LED iyo waxeeda waxaa leenahay 7 waxaa ula tacaamushaa inuu yahay output. Hadhow 7 aa meel walba ku qori doonaa. Haddii aan soo declare garaysano intii red LED aan soo dhahnana hadhow meeshan waxaa laga rabaa magaca aan meeshan usoo declare garaynay inaan meeshas ku qorno. So 3 waxay u taagan tahay IR sensor-kayga. IR sensor-kayga wuxuu ku jiraa D3 ama godka saddexaad ku jiraa. Godka saddexaad marka maadaama sensor uu yahay sensorada input waaye. So waxaa soo akhrisaa godka saddexaad wax ku jiro. Variable-kan ku shub. Marka waxaa dhahaynaa haddii uu yahay low sensorkayga haddii maanta uu yahay low LED-ka shid second-ka bacdina nalka dami. Haddii uu iska dansan yahana ha iska dansanaado. Marka meeshan waxaa u baahan tahay repeat-kii aad kaga hadli lahayd. Waxaa u baahan all leh waxaa u baahannahay repeat u baahannahay IR remote controller. So marka fiiri hadda meeshan start simulation marka wax ma daarno laakiin markaad daaro wuu daarmaa. Waa ka foqay wuu damaa. Mar walba oo repeat-ka hataa hal haddii aad taabatid meel kasta taabo wuxuu sheegaa in signal receiver-ka signal in loo diray IR sensor-kan uu shido nalka.
haddaa haayo second kabacdi wuu isdaminaa, then waa daaraa, after second wuu isdaminaa. Okay, casharka maanta intaas ku saabsan yahay. Haddii aad wax ka fahantay, fadlan la wadaag saaxiibadaada kale. Channel-kana noo subscribe gareey. Waa ku mahadsantahay daawashadaada.